ha sugin xaalad isku toosan noloshu waxay ka maran tahay dhammaystirnaan dhanka sood ka eegtaba ma jiro ruux leh dabeecadaha iyo dhaqanka aad adigu rabto oo dhan mana jiro qof dhammaystiran aniga adiga iyo iyaga midna ma jirto ama ma badna xaalad isku toosan iyo qorshe sidii loogu talagalay u fulaya waxaad arkaysaa waalid ilmahooda kolba iskuul geynaya kuwa kale oo hadba guri cusub ijaaranaya waxaad arkaysaa qof intaasoo jeer qoys dhistay uu haddana ka dumay waxaad arkaysaa qof markasta shaqo cusub raadinaya dhammaan dadkaasi waxay raadinayaan waxaan jirin waxaan ula jeedaa waxay raadinayaan xaalad isku toosan 100% si kale haddii aan u dhigo waxay jebinayaan xeerkan oo ku odhanaya noloshu ma ahan dhammays dhan markaad ka taagtaba dhan kalaa dhacayo waa dheeli weligeed ama noloshu waa tiro sagaala weligeedna ma tobanowdo isku day waxaad haysato inaad hagaajiso inta aadan wax kala raadin ogsoonow inta badan inaad beddesho waxaad haysato xalku kuma jiro balse wuxuu ku jiraa inaad beddesho sidaad u maaraynayso haddii aad aragto dad helaya natiijo ka duwantanaad helayso adiga idinkoo iskuwax haysta ama samaynaya ha u malayn inay duruufuhu saacideen ee waxaa kala duwan sidaad u maamulaysaan soomaaliduna waxay ku mahmaahdaa midho gunta kuugu jira kuwa geed saaran looma daadsho haddaba walaalkaygow ama walaashayda ayaa sugin xaalad isku toosan oo ay wax walba dhammaystiran yihiin ee waxaad maanta haysato sida ugu wacan uga faa'iidayso والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.